بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. marka hore waxaan ka salaamayaa halkani shacabka reer Somaliland iyo dhammaan ummadda ku nool caasimadda Hargeysa gaar ahaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan leeyahay salaan kadib waxaan maanta halkan u imiday in anigoo ah Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil madaxweynaha qaranka Somaliland degan caasimadda Hargeysa guri weyn oo aan ku noolahay ku leh caasimadda Hargeysa gaar ahaan xaafadda Koodbuur oo deganahay. waxaan saakaan ugu soo jarmaaday inaan bixiyo cashuurtii igu waajibtay ee dawladda hoose igu lahayd ee sanadlaha ah ee la yidhaahdo ardiyadda. dadku inuu fahmo, shacabka waxaa loo baahan inay fahmaan ardiyadda waxay tahay waa cashuur sanadla ah oo qof kasta oo muwaadina oo caasimadaha magaalooyinka Somaliland degan lagu leeyahay inuu bixiyo sanadkii hal mar ardiyaddaasi. gurigaa waxaan mulkiyey 2015 mulkiyey. waxa ardiyaddii koowaad igu waajibtay 2016 ee igu waajibtay ardiyaddii koowaad markaan joogno 2020 oo dabcan ah ardiyaddu waa sanadka waa qadimi dhammaasho laguma qaado sida cashuuraha qaarkood. waxaa lagu qaadaa qadim baa lagu qaadaa in sanadka aad bixiso qadinkiisa aad bixiso bilowgiisa sida liisanka oo kale waa la mid. ilaahay mahadii waxaan imida xarun ka duwan sidee bari ahaan jirtay meel aanan cidi ku shaqayn karin ahayd awal oo maanta xarun aad iyo aad u qurux badan si fiican u qalabaysan madax sharaf badan joogto meel dad loogu adeego meel ugu sharaf badan ayaan maanta ayaa soo galay saaka markaan imid meesha. anoo sita faylkaygii ayaan la imiday. waxaan maray borosaskii meesha yaallay. waxaan bixinayaa ardaydaydii guriga lagu lahaa. qiimeyn baa la sameeyey. qiimeyntii markii la sameynaa qoladii lacagta qabanaysaan u tegey. qoladii lacagta qabanaysaan markaa aan iga qabatay lacagtii qiimeeyey iga qabatay. marka lacagtii saasaan ku bixiyey alxamdulilah. marka waxaan leeyahay ummadda reer Somaliland ama shacbiga reer Somaliland ama madaxda reer Somaliland war cashuurtu waa waxa dalka iyo dadka lagu dhiso oo waxa qaranku ku qurux badnaado waa waxa magaalooyinka aan ku noolahay ay ku qurux badnaanayaan lagu dhisayo. marka qofku ay bixinayo wax weyn sa kuma aha laakiinse markay isku tagto ayay noqonaysaa lacag badan dhaqaalo badan oo waajibka aad ka rabtaan madaxda aad doorateen degmooyinka ama magaalooyinka aad doorateen waajib aad ka rabtaan waxay ku fulin karaan marka aad waajibkaa ka baxdo waajibkiina aad ka baxdaan ee cashuurtii laydinku lahaa aad bixisaan ayaad idinkana aad ku leediin waajibkii in cashuurtaa laydinku qabto magaalada laydinku qurxiyo adeegyadii asaasiga loo baahnayd magaalada u baahnayd laydinku qabto. taasaa keenaysa. marka waxaan leeyahay cashuurta iyo xaqa dowladaha hoose dadka ku leeyihiin laa carab walaa cajab waa loo siman yahay. madax iyo mijaba sheekh iyo shariif waa inay wada hoggaansamaan oo nin walba ardiyadda lagu leeyahay ama cashuurta loo leeyahay tu kale xitaa noqoto dowladda xitaa noqotee wixii cashuur ku waajibtay waxaa waajiba in shacabka reer Somaliland xilis ka saaro si dalkan u dhismo. dalkeenu ku dhismaayo baryo kuma dhismayo. wuxuu ku dhismayaa waxaan inagu leenahay. waxaan inagu aan isku kaashanay oo aynu isku geynay oon xooggeen
muruqeennii maalkeena maskaxeena midayna buu qarankan ku dhismayaa saa darteed waxaan mar labaadii mar saddexaad leehay iyayna arrintuu naga noqonin miskiin baa miska la fuulo leh in qofka miskiinka laga xoog badan yahay ee sharciga la jiirjiiri karayo ee albaabka laga soo goosan karayo kawn in cashuurta laga qaado maahine waa inuu ka horeeyaa ka dhaqaalaha haystaaye ka magaca mansabka haystaaye ardayaddii waxaa kugu le ardayaddu waa mast cid walba waa lagu leeyahay lagu nool yahay oo qof iska leeyahay iyo kawe u kareysanayo dowladda dhexe waxaa ku leedahay keliya iyadu aqalada kareysan aqi kareysan iyo dowladda dhexe wax ku leedahay laakiin sida dowladda hoose ku kasta way ku leeyihiin marka waxaan ku soo guuranay halkayga ilaahayna maartay sida khayrka allahna waafajiyo sida khayrka leh allahna waafajiyo masiibooyinka jirana ilaahay hayna garan mariyo abaaraha geeska afrika saameeyana ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay maartay naga soo jabsho intii aanan wali raxmad iyo ay gaarina ilaahay gaarsiiyo inagana ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in dhamaanteena naxariisto inteeni qaranka Soomaaliland soo dhistay soo dhimatay soo dhistay iyagana Allah naxariisto ee waalidiinteeni ahayd inaga way noo daba naxariisto sallallahu alayhi wa sallam halkani markaan hawsheeda dhamaystay anigu cashuurtii bixiyay nasiib wanaag gudoomiyihii isna kormeera gudoomiyihii caasimadda oo dhan ama degmada Hargeysa Beer Cabdikariim soo kormeera baa isna halkan noogu soo galay halkan baan ku kulannay aad iyo aad bisnoo baasiyo waa shaqada fiican